Cushion touch for Flamini. Now here's Pires. Lovely ball for Thierry Henry. This could be it. This could be the moment. It is. Record breaker, history maker. Thierry Henry is Arsenal's record goal scorer, and he looks to have made the point safe here in Prague tonight. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسنال صومالي فانس ميل كسر جوكتان يسي كستو مقال كيجو يولي بعود كيدي سوغاريو وأدمن وري محمود فانتاستيك channel كلا سعتنا وأرسنال صومالي فانس يوتيوب channel رالي هذا ما تستاق بنكدو بنا برامج كينا وحنو كويجينا ما أنت أوكله سنة كلا وكوني شن تيري هنري وحاو نقول اللاعب كي وجوجل شبنا تاريخ أرسنال si kasta wada ognahay iyo cid kasta way ogtahay cid uu yahay Thierry Henry wuxuu Arsenal soo qabtay meesha uu ka yimid iyo sidoo kooxda ula qabsaday Thierry Henry waxa yaraha lagu xasuusto gadaal baa ka soo gudbin doonaa laakiin waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan sida uu noqday laacibkii ugu taariikhda badnaa goolasha haddaba Thierry Henry maanta oo kale sanadkii 2005 laba gool uu ka dhaliyay kooxda Spartak Prague kulan ka tirsan Champions League haddii aan khaldanayn oo laba gool ka dhaliyay ayuu ku noqday لاعبكي ugu goolsha badnaa ee taariikhda Arsenal isagoo markaas dhaafay xidiga An Wright oo 185 gool lahaa kulankaas ama kulankaas kulan ka horeeyay Henry. Long ball looking for Thierry Henry. His first touch is Shaw. Henry up! What a return for Thierry Henry! He's been out for over a month, but the magic is flowing for the Arsenal captain. Oh, what an unbelievable strike this is. This is what you call world class. oo ka horeeyay marka Henry waa uu baasay waxa uu noqday xidig ugu horeeyay taariikhda Arsenal ee gool dhalinta ama goolasha ugu badan u dhaliya hadaba Thierry Henry waxa uu Arsenal ku soo biiray sidaan wada ognahay 1995 Israel hada wuxuu ku soo biiray 1999 isagoo kaga soo biiray kooxda Juventus oo markaas Arsenal uu leelinaya macalinkoodii weynaa ee Arsene Wenger oo dhamaanteen u soo wada xisnay kadib Arsenal xiriirada ugu horeeyay ma ahayn mid fiican kadib kooxda waa uu la qabsaday jawi kadibna waxa uu noqday xidig gool dhalina oo heer caalami ah waxa uu noqday xidig ay difaaciyada ugu fiicnaa caalamka markaas ay u ahaa mid ay ka cabsadaan oo ay aad uga baqaaneen difaaciyada waaga la wareystay oo xidigan aad uga baqi jiray waxa kamid ah difaacii kabtankii kooxda Inter Milan insan wada garanayna sida uu galay kulankii 5-1 ay ka dhacay San Siro Javier Zanetti difaaciyada waagaas Thierry Henry sida baan uga baqi jiray oo waliba oo lagu tilmaamay weeraryahanku ugu xumaa oo ka hortago waxa kamid ah kabtankii hore kooxda Chelsea John Terry oo isagu sheegay in Henry uu yahay xidigii ugu halis badnaa ama weeraryahanku ugu halis badnaa ee uu taariikhda ka hortago waxa kamid ah daafacyadii la wareysto oo sheegay in xidigan aad uga cabsan jireen kabtankii kooxda Barcelona Carlos Puyol isna waxa uu sheegay in Henry uu ahaa mid aan la qaban karin waliba ay kulmeen sanadkii 2005-2006 finaalkii Champions League oo Arsenal si dirqiya looga qaaday difaacyadii kale oo xidigan aad ka uga baqi jiray waxa kamid ah difaacyadii xulka Brazil Cafu sidoo kale difaaciyada ninkan aad iyo aad ka ishu uga han jiray waxa kamid ah difaacii hore ee kooxda Real Madrid iyo waliba difaac haatanba jooga Sergio Ramos inkastoo waagaas uu Ramos ahaa daafac daayir haddana waxa uu sheegay in Henry kulamadii uu Barcelona kaga hortagay kulankii 6-2 ay ka dhacay garoonka kooxda Real Madrid oo Barcelona 6-2 ay kaga badisay La Liga kulan ka tirsanaa sidaan rajeynayo oo Henry laba gool dhaliyo kulankaas laba goolna uu caawiyay oo Messi ka caawiyay marka Henry maanta waxay ku xababeegan tahay markii uu gool dhalinta qaaday hadaba waxaan eegi doonaa insha Allah inaan ka sameeyno barnaamijyo barnaamijyo aan kaga eegayno aan ku eegayno bal Henry sidoo ku soo bilaabay Arsenal iyo sidoo goolasha ula soo qabsaday iyadoo haatanba ay jiraan in sidii uu tartiibta uu ku bilowday Nicolas Pepe horta Henry weeraryahan toos ah waxa laakiin Pepe waxay garab ka ciyaaro waa garab weerar ah laakiin ma qaban doono Nicolas Pepe waa ku xamaynaa mawduuc kale soo gariy haddana taageerayaasha Arsenal Twitter-ka waxa ay xidigan ku tilmaamayeen Henry oo xataa sanadkiisa ugu horeeyay u baahnaa inuu kooxda la qabsado oo mid wanaagsan sida darteedna Pepe laga yaabo in sanadkan uu maadaama kooxda ku cusub yahay laga yaabo inuusan kooxda la qabsan oo sanadkiisa ugu horeeyay tahay haddana
waa arki doonaa bal Pepe iyo halka uu ku dameeyo inuu kulankiisa ugu horeeya kulankeena ugu horeeya Premier League aan ciyaari doono maalinta Isniinta hadduu Allah ugu dal idmo waan ka hortagi doona kooxda Sheffield United kulan ka tirsan Premier League 20ka fiidnimo ayuu soo galaya xilliga Europe aan joogo Europe-tan Austria Germany Sweden Scandinavia-ka halka Africa wada Allah ugu dal ka soo gali doona sida aan rajeynayo كوب يا لبعتنك أما سيدا رجينا أما لبي لبعتنك ساعد ولين يدك ما حيو إن شاء الله لكن ويدي سعود لنا برنامج قارئ كشمل دونا كلنا إن شاء الله وأدم من وري محمود فانتاستيكي لمان شاد من هالكودي كي السلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.